madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo maanta xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka hadlay arrimo muhiim oo la xiriira deegaanka isla markaasina sheegay in aan la qaban karin shir qabiil oo siyaasadeysan. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan salaamayaa shacabka sharafta leh deegaanka Soomaalida. waxaan ugu hambalyeeyaa in maaragtay si fiican oo wanaagsan u noogu dhacay xubinihii tobnaad xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo ahaa runtii tallaabo shacabku aad u sugayeen muddo badan qaybna ka ahayd abuuridda jawi deganaansho siyaasadeed hawshaas oo runtii naga dhacday. waxaan markaa leeyahay waxaa soo gaaray xilligii aynu awoodeen isugu geyn lahayn inaan dhankii horumarka u soo jeedsano oo deganaanshaha amni iyo deganaanshaha siyaasadeed ee deegaanka uu dhalo marihii maaragtay laga sugayo oo ahaa dhanka horumarka wax laga qabto iyo in maaragtay si buuxda sidii dadka loo walaalayn lahaa looga shaqeeyo. arrimahaas dhowr qodob la xidhiidha ayaan rabay inaan soo jeediyo oo fariimo ah. ta ugu horeysa waxa weeye in maanta laga bilaabay la mamnuucay shirar qabiil oo ku saabsan siyaasad. arrintaas oo nahay arrin cusub oo hadda anagu aanu keenayno ee ah arrin dastuurka iyo shuruucda deegaanka u yaalla ku qoran in qofkii raba inuu arrimo siyaasadeed ka hadlo ay u bannaan tahay inuu arrimaha siyaasadeed si sharciya uga hadlo shakhsiyan uu ka hadli karaa. laakiin haddii urur meel la isugu keenay iyo abaabul ay noqoto qaabka keliya uu isu abaabuli karaa ay tahay qaab aan ahayn qabiil ee isu abaabuli karo qaab xisbi siyaasadeed. sidaa darteed in magaalada Jijjiga iyo meel ka tirsan deegaanka toona aan lagu qaban karin shir qabiil oo sal ku haya siyaasad. laakiin qabaa'ilku way shiri karaan iyaga oo ka tashanaya arrimihii qabiilka u yaalay ee dowladda iyo siyaasadda ka madax bannaanaa oo kuwa ay ka mid tahay in la xalliyo khilaafaad qabiil ka dhexdhacay arrimihii in magala kala qaato arrimaha hawlaha la xidhiidha way ku shiri karaan. laakiin haddii ay jirto cid u xiisaysan inay siyaasad ka hadasho iyada oo qabiila xisbi way samaysan kartaa siyaasadeed haddii rabto oo looma diidayo. waa laga bixi karaa magaca qabiilka inta la baxdo xisbiga dhaqdhaqaaqa waxaad odhan kartaa adoo maraya wadadii xisbinimada lagu mariyay iyo shuruucdii iyo qawaaniintii oo soo qaadanaya fasaxii iyo wasaqdii loo baahna. laakiin sidii ka dhacday walaalihii jaarkaan oo kale inay siyaasadii deegaanku totally ay noqoto mid qabaa'ilada ay ka talinayaan oo hay'adkii dowladnimo iyo kii xisbiga iyo ka tago oo laga tago waxaa keenay duruufihii jiray ee siyaasadeed iyo isbedelku qaabkii uu ku yimid iyo burburkii dhacay mid sii socon karta maaha waa mid shacabka isku horkeenaysa. taa markaa in lagu baraarugsanaado oo la iska ilaaliyo yaan maaragtay shacabka fariintaas inaan u gudbino. ta kale waxaa weeye in dhammaan ciidamada ammaanka iyo hay'adaha nabadgelyada lagu amray in ay sugaan amniga deegaanka kana hortagaan shaqaaqooyin iyo wax u eg mudaharaadyo aan sharci ahayn oo ay abaabulayaan dad ka soo horjeeda deganaanshaha deegaanka oo isugu jira kuwii isbedelku ku yimid kuwii isbedelku u yimid maaha kuwii isbedelku ku yimid wax ku waayay isbedelka oo heegan ugu horeyso iyo kuwo faa'iido siyaasadeed ka raadinaya shaqaaqooyin noocaasa oo qabiil salka ku haya. labadaa kooxood iskaashanaya oo rabaya deganaansho la-aan deegaanka geliyaan inaan loo ogolaanin. dhammaanna magaalooyinka caasimadaha iyo gobollada ciidamada ammaanku ay amar buuxda u haystaan in ay ka hortagaan wax allaala wixii carqaladeynaya amniga deegaanka iyo keenayana iska horkeen bulsho. taas macnaheedu maaha in dadku aynan sheegan karin dhibaatooyinkooda way sheegan karaan. shirar la qabanayo oo dadka loo qabanayaa jira shirar iyaga ay qabsan karaan baa jira intay fasax u qaataan ra'yigooda iyo fikirkooda iyo wixii dhaliil ay dowladda u qabaan way soo jeedin karaan way ka hadli karaan. laakiin in wax dad inay isku dhacaan keeni kara ama in guddaata laga shaqeeyo oo weliba aan hayno caddaymo ah in arrintaasi ay tahay arrin ay rabaan faa'iido siyaasadeed inay ka helaan dad fara badan isugu jira kuwa qandaraasyo waayey oo careysan
ودنا رودي قدرت كي قدراس كهلان أنتو ديكتاتور كوا فائدة سياسية كرهادية مصر كرهادية أنت تسكت عن كوا يوم سبدل كوجود بالدين توتالي وأكوي هراء مدة هجادية قبلها في سنتري وحاصل اسمه صغير إن الديمقراطية يحرتقوك إلى فائدستان إن إسلام الديمقراطية يحرتقوك يكون بالبريان لغير الماء الديمقراطية دي إن الأولى يستطيعون الديمقراطية دي يكون بالبريسو وضدك يوجد إلى سحر أو إمارة ديودي وشقيسو وحلق بكرمه تعامل كهذا أميجا إمارة يرتع هستان شعب كنا عن كأوصلنا إن عقوا عويان بيشوا واجبات كذا عندك على مشت عليه حوي إن تبكي هجرها يدرب بواش شرط ولا شعب كنا باتين وجيستي أو أي كلمة يجيكوا عبدالله هذا عبدالله هيو كل رجع ميت كأكو استعجال مدح كي تاجنا كود تقولي كود أنتيني ميت ك يريني هالجماعة شهيد كنت ميت كود ما أنت اللي نقول كون بالشيء على أبوله وكعية هكذا يسوى جارن إن المارة أي كانتي عبس كيلو في دين يقص عشان لو سعودي تادي قرنين إن عبس كيلو غير نقضي ولا حساب تمايو موسيقي أي كتشرين نباتين ذلك أي جيستين تعديل أي جيسينين رجع حبسي أي كدو كاتشين وحي رمي لصدام بيجيو تلابا أبدا ما لقى قاضي إن تانا أي أجادان ولا حساب تمايو ما هل كان شوغان ما تسهل شوغان تاني اللي أجادان مرنا أن لو أجلانين نكي شل ميتك شيخ دق عكت الساري الجماعة شيخ دق ومطر ودنتي نكي عكت الساري كتبني ما أنت إنه اسكابي من غير أهرلية هذول هذول تتشالوا بهذول ما قد قالها ولكن شالوا بهذول ما قد قالوا كيني ما أنت هذا سوي استعمل غير كعايد هذا كرسي ولا يندي كرسي أيام غير ما أنت صوماليات إنه كعيرها شالوا الوليش كدو كاتشي كاس وكلا إلى مرنا عكس لو في دون طبعا غير قاعد الدنيا وجدان تكلم حوي إن فهم كخلدان إلى قاعدين مرة بدود واحد يسوع ثاني بشيء الرصع ترى كود معه اسمها دود أما كابيني هالنقطة أما حيجي هالنقطة ترى كود معها لليه هاي دون هذا أنت سلبي سيو أنت سلبي سيو ترى اسمك غير كاس يا بدم يا كاس غير ما فهم كاس خلد وحسيت meel walba dadka Soomaaliyeed isla heetay leeyihiin laga soo qaadanayo meelaha qaar koodna dadka faraha badan ee sheeganaya farbadan yihiin gobolada qaar kood inay wax ka tagaan oo kuwa ay leeyihiin minority wax uga tagaan oo u ogolaan tanaasul u sameeyaan si walaalnimo isticaal loo abuuro faham noocaas dadku ay ka qaataan islaamaha bararoon leeyahay wasaabiyada ku jira reer balweeriyay in totally fikirka dambeeyay ee rimiga noocaas ay xukuumadda ay u dulqaaday bulshaduna laga rabo وأمرنا أن كنا كسلين فكر نوع عصف فيدباك بشكل ما أنه أركين تايل وجادو قفك ما أنت ريه بالصدح بيلها يعني ما أفر بيلها يعني ما شام بيلها يعني الله بالسية صدح بالسية هل بالسية كنت يا لما يعني شلا بيوجد بنو ما كي قبلها لقاولي بس اللي وش بي رجع هرتو ده الاسكوح حري سيدياش هرتو ده قطع سيدي كتشو أبدا هاي ما أنت معي تاني إنه وجادان بمهمة تكلم حوي إن الرضا سيد نبتقليه ده وده دقيقة دجانك وقلاضينا إنه سي شرعية دجانك سياسة دودي أفكارته وفليان إنه كفوا قاعدان وحراها كيني كرا إن بشر يسقط عضو يجوا فائده أروه سيسو سكية أو حكم أما حل كرهدنية إن أين آسين مينوين بشر يسكور كيني وببرونية دجانك وأي كم تهاي قبيلة إن أي كفوا قاعدان iyaga sheegta inay yihiin urro bulshada oo dhan u dhaxeeya oo meel walba kaga hadla haddii bulshada oo dhan u dhaxeeyaan marka in afkan laga yahay bulshada oo dhan baan u dhaxaynaa Soomaaliya oo dhan baan metelnaa gobol baan gaar ah manihin hoosna kawaadirtooda ay dadka ugu abaabulaan reer hebel baynoo reer hebel baa laga tagay qabiilkeena waa arrin iskhilaafaysa oo munaafaqada oo fiicnayn oo ummadana u horseedaysa madax la isla galo arrintan inay ka fogaadaan sababta waxaan ognahay in kawaadir fara badan oo ururadaasi ay qayb ka yihiin dhanka social media ha noqoto dhanka hoos dadka dhexdiisa ha noqoto in ajenda qabiil ay abuuraan oo dadka iska horkeenaan ummad Soomaaliyeed maanta uma baahna iska horkeen iyo qabiilad in la dhex dhigo oo madax la isu geliyo cabashooyin iyo tabashooyin la xiriira reeraha waa la keeni karaa waa la soo dhigi karaa waa laga hadli karaa lama diidana hadalka
reeb inta maxaa loo siiyay inta maxaa loo hayay laakiin in abaabul siyaasadeed loo bedelo oo lagu rabo in lagu majaxaabiyo nidaamka sharciga ee deegaanka jira wax la aqbal karo maaha intaasna rabay shacabka inaan maartay u soo gudbiyo jimco wanaagsan dhamaantii waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh